xisbiyadu waxa rabaa inay noqdaan xisbiyo siyaasadeed xisbiyo nabadeed xisbiyo horumarineed xisbiyo bulshada u adeega ee aanay naqan kuwa bulshada moraalka ka jabiyo ayaamahan waxaan maqlayay xan fara badan oo magaalada ku jirta kacdoon hal la sameeyo jidadka hal la xiro hal la gubo taayir hal la gubo xaafadaha qaar hal la qabsado isbaarooyin hal la dhigo iyo green line iyo qad cagaaran xamar xantaasaan maqlayay maana waa la mise wax jira waa wax jira lama inkiri karo dadka waxa ku hadaaqaya waxa la rabaa inay ka waantoobaan hadii kale dawlad iyo shacbi isku duuban lagu ma adeeg guriga loogu tagaya waxaan kaloo rabaa inaan idin sheego dawladnimo inayna ku imaaneen tuugmo iyo baryo iyo salaax dawladnimo xoogay ku timid xamar markay imaanaysa dadka miyaan baryayn sidii loo baryayay 18 sano la baryay wadida Soomaaliya 18 sano la baryayay maalintan xamar soo galayay oon habeenkan afgooyo ku hoyday anoo dhulka soo maro ka imid Baydhabo magaalada ha soo galin balay magaalada dawladdu ay soo galinay buundada afgooyo ay soo dhaafeen iyo buundada balcade hana la xaajood waxa dhahay Soomaali bay ahaayeen dawlad ma la xaajoonaysa shacab xoogay ku timid barya kuma iman xoog baan lagu ilaalinayaa dhiigeesiyaal iyo gabdhaha ragana lagu ilaalinayaa ogaada waxaan rajaynaa cid u malaysa dawladdu inay dulqaad badan tahay aaminsan anigu waana laga rabaa dawladdu inay dulqaad leedahay laakiin markii dulqaadku bato ee loo maleeyo inay doqon yihiin madaxdu inay doqon ahayn inay muujinaan rabaa yaan lagu sirmin dadka ha loo caqli celiyo gudoomiye batuula halka ka sheegtay wiil kasta nin kasta guriga ku soo hoydaa casho loo karinaha ilmi aab bay leeyihiin ay adeer iyo waxaas guriyahay ku soo ay joogaan ragga dawladda inay dumiyaan ka shaqeynaayo waxaan halka ka maqlay war aan aad u xiiseynayo oo uu sheegay ogaas maxamed weli taariikh uu sheegay rag kalena waa ku celiyay bulsho deegaanka gogasha qaranka ee muqdisho deganay waa la idin la hadlaa dad wax maqlaysan waa la idin la hadlay yaalada waxay yiraahdaan shacbigu waa hadlay islaamkuna ay yiraahdaan shacbigu waa hadlay xil gaar ah saaran caasimadda iyo bulsho deegaanka ku nool waan ogahay inay wax tabanayaan ogaas maxamed weli xuquuq baa maqan xuquuq deegaan baa maqan soo ma xuquuqda deegaan in Soomaalidu ogasha oo aragteen idinku diyaarsada